boqolaal dhalinyaro u badan oo ku xamaashan mooto bajaajta ayaa subaxnimadii saaka xiray afarta wado ee soo gasha degmada Beled Xawe ee gobolka Gado iyagoona ka mudaharaadaya lacagaha canshuurta ee laga qaado iyo warqadda nabad sugidda oo lagu amray in ay bedel ku sameeyaan waxayna sheegeen in warqadaha nabad sugidda si joogto ah loo bedelo waqti kooban iyagoo aanay dhameysan muddada ku xusan warqadda ee loo qabtay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa warbaahinta kula hadlay argada faras magaalaha degmada Beled Xawe iyagoo arrimahaasi ka cabanayaan waxyeeladooda ka mid ahaa haddaan nahay gaadiidka degmada Beled Xawe dhalinyarta wado waxaan ka cabanayno waxa weeye dhibaatadii nagu hayaan ciidanka nabad sugidda degmada Beled Xawe waxaan kaloo ka cabanaynaa warqadan oo sidii shaatiga loo bedelayo nabad sugidda saddex bilood annaga haddana nagu la kordhinayo lacagtii xilli abaareeda lagu jiraa uma hayno waqtigaas iyo lacagta ay sheegayaan annaga la daaladhacayno xilliyada abaareed waxaan kaloo ka hadlaynaa haddaan bajaajilay xabad baa noo dheer inta bajaajilay degmada lagu dilay lama xisaabi karo waxaa kaloo noo dheer inaa 10 saac xaroodna la yiraahdo 10 saac waa xilliga magaalada la shaqeysanahay magaalada waa nabad waxaan ka cabanaynaa maamulka degmada Beled Xawe ama ha yaraado ama ha weynaado maamulkaas dib nagu hayo niman la yiraahdo nabad sugid oo si shaatigi wax isku bedelayo oo saacad walba meeshan marayna qabanayo cashuur baa nagala qaadaa oo bil baa nagala qaadaa oo waana la dilaa oo hadda ninkii ugu dambeeyay nin bajaadla oo masaakiina oo bajaad wato yaa inta la fuulay iqaad xabad loogu dhufta oo nin askari ah ku dhufta nimanka qoryaha wato oo Beled Xawe joogo uma wataan cadow uma wataan cid kale gaadiidka Beled Xawe ka shaqeeyay u wataan iyo shirka ay doonayaan oo haday ku diidaan ay xabada ku dhufarayaan waxaan dawladda ka codsanaynaa maamulkan Beled Xawe ee gobolka Gado ee balaayada shaatiga ale inaad si noogu dhigtaan farmaajan rabaa aniga maanta dacwadan waan qabaa maanta waxa weey waa dacwaysa waa dhibaa meesha nagu haysta waa nala haystaan nahay runta darto meesha anaga la haystaan nahay niman yahow meeshaan maalin walba waa lacag baa nagala guraa ma shaqaysano kistan shaqayna waa nagala sii qaadaa warqad nabad sugid la yiraahdo bil walba markii la qaado waa laga bedelaa 4 bilood hadda aan shaqaysanaa 4 bilood la yiraahdo waa laga bedelaa 2,000 shilin bixi markeeda hornada $100 nagala qaaday lacagtii aan shaqaynaa haddana dhulka dhigana leeyahay saaka waa naloo hanjabay 5 xabadood lagu xareey lacagta hadaad bixinna la dhahay hadii kale waa leedin xirxiraa corona la soo qaadaa waa leedin bilbilaan la yiri gudoomiyaha degmada Beled Xawe ayaa dibadbaxayaasha ugu yimid argada faras magaalaha isagoona uu sheegay in la xalin doono cabashadooda ayna iska soo saaraan guddi arrimahaasi ay kala hadlaan